kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa maxay dadku ugu guuldaraystaan waxa ay rabaan nolosha. waxaa laga yaabaa inaad hore u soo dareentay isla markaana aad u soo martay dareenka qadhaadh ee ay leedahay guuldarradu, mana awoodi karaysid inaad maalintaa kacdo. sidoo kale waxa aad u adag inaad ku noolaato adduun aan ku siinayn oo aanad ka helayn waxa aad rabto. aan kuu sheego dhowr xaqiiqo oo dunidan ku saabsan oo aanay dadka badankoodu ku baraarugsanayn. farxadda lama helo ee waa la kasbadaa. noloshuna ku siin mayso waxa aad rabto ilaa aad adigu si xoog ah kaga qaadato mooye. sidoo kale noloshu weligeed ku ixsaan samayn mayso ilaa aad ka noqonayso qof adkaysi ku filan u leh inuu u dagaalamo halganka noloshiisa. markay dadku guuldarro la kulmaan kadib, dad badan ayuu fikirkoodu isbedelaa. mararka qaar waxaa qofka ku abuurma fikrado cusub, fikradahaasi oo qofka ku qanciya inuu la noolaado guuldarrada kana quusto inuu guulaysan karo. farqiga keliya ee u dhexeeya dadka hela waxa ay rabaan nolosha iyo kuwa guuldarrada la saaxiiba waa fikirka ay qaataan markay guuldaraystaan. halka dadka guulaystaa fikirkii ay dunida ka aaminsanaayeen aanu isbedelin oo ay sii wadaan halgankii ay ugu jireen nolosha. waxaa laga yaabaa inaanay nolosha ku siin waxaad rabtay muddo gaaban. waxaa laga yaabaa inaad caqli iyo karti badan tahay oo aad haddana marar badan guuldarraysato. waxaa laga yaabaa inaad aqoon fiican leedahay haddana aanad helin shaqadii aad ku hamiyeysay. waxaa laga yaabaa in dhammaan waxyaabahani muddo gaaban kugu dhacaan, balse haddii aad adkaysi badan yeelato oo aad iskudagaaga sii wado, ugu dambaynta waxaad heli doontaa waxa aad rabto nolosha. dadkeennuna waxay ku mahmaahaan samraasadkii hela. mar kasta oo aad adkaysataa waa mar kasta oo ay guusha kuu dhowdahay. marka keliya ee aad si dhaba u guuldarraysatay waa marka aad joojiso iskudayga iyo adkaysiga, balse maaha markaad guuldarraysato. furaha aad ku heli karto waxa aad rabto nolosha waa inaad isku daydo oo aad isku daydo ilaa aad ka ogaanayso waxa si dhaba kugu shaqaynaya. sida loo helo waxa aad rabto nolosha. xaqiiq ahaan ma rabtaa in aad hesho waxa aad rabto? ma fahansan tahay waxa rabitaan macnaheedu yahay? macnaheedu waa in aad damac ku gubo u yeelato waxa aad rabto inaad hesho. macnaheedu waa inaad diyaar u tahay inaad u horto wax kasta si aad u gaadho hadafkaaga. macnaheedu waa inaad u dulqaadato guuldarrada, dhaleecaynta, diidmada iyo wakhtiyada adag. inaad hesho waxa aad rabto noloshu waxay ka bilaabantaa inaad ka adag tahay naftaada ood u jihayn karayso halka aad adigu rabto. maya ku dheh markay naftu ku tidhaahdo waxaa ma awoodid, adigoo go'aansanaya inaad beddeshid noloshaada. maya ku dheh hoosaynta, adigoo meel sare hiigsanaya. maya ku dheh dareennada xun, adigoo u dagaalamaya si aad noloshaada dhinaca fiican ugu beddesho. maya ku dheh daciifnimada, adigoo noqonaya qof awood leh. haddii aad sidaas samayso waxaad heli doontaa waxa aad rabto nolosha. waxaanad noqon doontaa mid la saaxiiba guusha halkii aad la saaxiibi lahayd guuldarrada, isla markaana ay ku dhaafi lahaayeen dadkii aad isku filka ahaydeen. la halgan nolosha oo u dagaalan guushaada. aad baad u mahadsantihiin dhammaan akhyaarta sharafta leh. haddii muuqaalkani ku anfacay, ha ilaawin inaad like saarto. sidoo kale ha ilaawin inaad sabskrayb saarto haddii aanad hore sabskrayb u saarin.